kulan wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu doorka roon warbaahinta walaal qodobadaan idiin haynana waxaa qayb ka ah khilaafka dhanka doorashada oo saameyn xoogan ku yeeshay bulshada iyo walaac laga qabo qabashada doorashada Soomaaliya ee ka dhacaysa 2021 ee sanadkan aynu ku guda jirno. Xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lacag ku bixisay dib u doorashada madaxweyne Farmaajo xoga ayaan idinkaga haynaa. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya oo sheegtay in dawlad la dhisa aan laga maamulin xilada xalane madaxweyne lafta gareen oo bilaabay xalinta khilaafaadka doorashada haddaba xalintaasi uu ka dhex bilaabay waa daawan doontaan. dawladda federaalka Itoobiya oo digniin adag u dirtay Suudaan digniintaasi maxay tahay amar culus oo lagu soo rogay dhammaan dadka Mareykanka amarkaasi muxuu yahay goormase ayuu dhaqan gelayaa waa daawan doontaan. Meeg Babeeyo Iiraan waa saldhigga ugu weyn ee Al-Qaacida haddaba saldhiggaasi muxuu ugu tilmaamay inuu yahay saldhigga ugu weyn ee Al-Qaacida ay ku leedahay Iiraan. Ilhaan Cumar Trump waxa uu halis ku yahay dadka iyo dalka Mareykanka kadib markii uu ka soo horjeestay in uu tago caleemasaarka loo samaynayo madaxweynaha dooran ee dalkaasi xilli Ilhaan Cumar iyo Donald Trump ay isku yihiin dab iyo baasiin. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad warkeena ku daawan doontaan ee fadlan haddaad nagu cusub tahay channelkeena subscribe saar siina share gare si waxyaabaha halkan soo gelino ay ku soo gaaraan adna waad ku maasan tahay daawashada iyo la socodka warkeena. aan ku bilownay daawadayaal muranka dhanka doorashada Soomaaliya ayaa waxa uu ka sii daray kadib markii dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in dalku aaday doorasho waxaana dalka ka jira dhibaatooyin dhinacyo badan ah oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada Soomaaliyeed. doorashada Soomaaliya oo xilligan cid walba ay u hanqaltaagayso indho walba oo caalamka iyo gudahaba ay fiirinayaan ayaa xilligani ah mid weji kala yeelatay waxaana sidoo kale doorashada Soomaaliya walaac xooggan ka qaba midowga musharaxiinta Soomaaliya oo iyagu u taagan qabashada xilka ugu sarreeya dalkan. doorashada Soomaaliya oo muran xooggan uu hareeyay ayaa dhawaan xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in doorasho uu dalku aaday oo laga maarmay maamulada Jubbaland iyo Puntland oo iyagu aan weli soo magacaabin guddigii ku mateli lahaa guddiga heer federaal ee dawladdu u magacawday in ay maamulaan arrimaha doorashooyinka. xaal waa ka sii daray kadib markii arrintaasi ay maqleen midowga musharaxiinta shirar isdaba joog ah oo ka dhacay Muqdisho oo looga hadlay arrintaasi ayaa gabi ahaanba ay ka soo horjeesteen midowga musharaxiinta Soomaaliya waxa ayna baaq u direen beesha caalamka waxaana lagu gacan sayray baaqaasi balse waa looga soo jawaabay midowga musharaxiinta. hadalka ay doonteen iyo midka loo soo diray ayaa kala ah kaaf iyo kala dheeri midowga musharaxiinta Soomaaliya markii ay baaq u direen beesha caalamka balse beesha caalamka ayaa mar kale ku adkaysay midowga musharaxiinta iyo cid kasta u tartamaysa xilka madaxtinimada in aan laga bixin shirkii 17 Diseembar iyaga u diiwaan gashan in aan laga bixin shirkaasi qodobadii ku jiray taasna lagu geli doono doorashada. waxaa dadka inta badan gorfeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay isweydiinayaan haddaba waa maxay dharbaaxada kulul ee ku dhacday midowga musharaxiinta iyo wixii ay ka filayeen beesha caalamka oo warqad dheer ay u qoreen isla markiina looga soo jawaabay. dadka qaar ayaa waxa isweydiinayaan arrintaasi ma waxa ka dambeeya xukuumadda Soomaaliya mise taliska madaxweyne Farmaajo. cid walba oo doorashada Soomaaliya u hanqaltaagaysa ayaa ka walaacsan xaaladda dalka u marayo gaar ahaan markii midowga musharaxiinta ay baaq u direen beesha caalamka balse isla markiiba looga soo jawaabay. beesha caalamka oo ku adkaynaysa dhinacyada ku tartamaya doorashada Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay in cid walba oo wax tabanaysa wadahadal lagu dhameeyo arrintaasina ay noqoto mid ku dhammaata shirkii 17 Diseembar lagu galay caasimadda dalka kaasoo ay heshiiska wada ka gaareen dawladda federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada balse maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa iyagu heshiiskaasi ka soo horjeestay. waxayna sheegeen in heshiiskaasi qodobadii la gaaray looga baxay balse ilaa iyo hadda ma aysan cadaynin qodobada rasmiga ah ee looga baxay marka laga reebo in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gado laga soo saaro maamulkana lagu wareejiyo
Axmed Madoobe oo isagu dhowr jeer ka hor yimi sharciyo iyo weliba hadallo ay dowladda Soomaaliya ku doonaysay in doorashada Soomaaliya lagu qabto. Si kastaba aatee bulshada ku dhaqan caasimadan dalka iyo weliba bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ayaa waxa ay saameyn ku yeeshay doorashada Soomaaliya. Dhaqdhaqaaqii dhanka ganacsiga ayaa uu hoos u dhacay kadib markii ay doorashada Soomaaliya soo dhowaatay. Qaar badan oo musharaxiinta ka mid ah ayaa iyagu waxa ay ka walaacsan yihiin sida ay noqon doonto doorashada xilligani. Walaac xoogan ayaa ka jira dhan kasta Soomaaliya maanta, waxaa ka mid a ganacsiga, amniga iyo weliba harow socodka dhanka horumarka iyo sidoo kale wasaaradihii bulshada u shaqayn lahaa oo gaabis uu ku yimi, kuwaasoo intooda badan wasiiradooda ay ku mashquulsan yihiin doorashada Soomaaliya. Intaas oo isbiirsaday ayaa bulshada rayidka ah waxa ay ku noqotay saameyn xoogan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa bilaabay wadahadal uu la yeelanayo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo ka soo horjeeda hanaanka loo wado doorashada Soomaaliya, sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Koonfur Galbeed. Madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa bilaabay dadaaladiisa xal u raadinta muranka dhanka doorashada. Wararka aan ka helay ayaa sheegaya in Laftagareen iyo madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland ay ka wada hadleen xaaladda khilaafka dhanka doorashada, isla markaana uu Laftagareen soo jeediyey in ay sheegeen in halka uu ka dhici karo kulan dhexdooda ah, isaga oo soo jeediyey Muqdisho iyo Baydhabo midkood, waxaana la sheegay in ilaa iyo hadda la isku mari la'yahay balse aysan jirin muran arrintaasi ka taagan. Laftagareen ayaa hore u qaatay mas'uuliyadda xal u raadinta muranka dhanka doorashada Soomaaliya oo hadda gaaray meel sare. Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale soo jiidasho siyaasadeed ku samaynaysa shacabka Soomaaliyeed si mar kale uu soo laabto. Madaxweyne Farmaajo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa codheer ku sheegay in ay ka shaqaynayaan horumarinta dib u dhiska dalka si bulshada Soomaaliyeed wax kasta ay u helaan. Sidii aan hore ugu ballan qaaday, furista wadooyinka xirani waxay noo leedahay mudnaan gaar ah si uu u sahlanaado isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha, una bulaalo ganacsiga caasimada. Furista wadooyinka muhiimka ah waxaa xigi doona kuwo kale, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Roble. Waxaa dhaqaale ay dowladda Soomaaliya ku bixisay sidii wadooyinka dhagxaanta shubka ah iyo caratuurka yaalay looga qaadi lahaa, iyadoo shacabka ku soo dhoweynayaan arrintaasi. Balse arrintaasi ayaa u muuqata mid dabada laga riixayo oo uu gadaal ka wato madaxweyne Farmaajo, taasoo shacabka Soomaaliyeed lagu kasbanayo. Waa siyaasad kale oo ka soo dhex baxday filla Soomaaliya sida ay aaminsan yihiin dadka gorfeeya siyaasadda Soomaaliya una dhuun daloola arrimaha doorashooyinka xilligani. Xalimo Ismaaciil Xalimo Yare, gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ka hadlaysay shirka sanadlaha ee garsoorka dalka, ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in la dhiso dowlad aan laga maamulin xirada Xalane. Hadalkeeda ayaa waxay ku tiri, walaalayaal, waddankan god dheer ayuu ku sii socdaa 4 sano. Xalane ayaan joognaa, dad ayay dan u tahay in aan Xalane joogno. Dowlad aan Xalane laga maamulin aan dhisano, ayay tiri Xalimo Yare. Shir sanadeedka garsoorka dalka oo uu furay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay hay'adaha garsoorka heer federaal iyo dhammaan hay'adaha garsoorka ee dowlad goboleedyada. Qabashada shirkan garsoorka dalka bilowga sanad walba oo ah mid qaanuuni ah ayaa maanta iyo beriba looga hadlayaa waxqabadka garsoorka Soomaaliya ee sanadkii tegay, caqabadihii lala kulmay iyo sixitaankoodii qorshaha garsoor ee sanadka bilowga ah iyo isku xidhka qaybaha garsoorka ee dalka. Shirkan ayaana waxaa la filayaa in maalinta beri ah la soo gabagabayn doono, xilli ciidamada dambi baarista Mareykanka ay weli ku raad joogaan dadkii weeraray aqalka Koongareeska. Ayaa dhanka kale isla xubnaha dimuqraadiga ee ka tirsan aqalkaasi waxay sheegeen in ay ku rajo weyn yihiin in xilka qaadista madaxweyne Trump. Ilhaan Cumar oo ka mid ah xubnaha Koongareeska ayaa waxay madaxweyne Trump ku eedeysay in uu sabab u ahaa rabshadihii ka dhacay dhismaha Capitol. Dambiyo badan ayaa lagu haystaa, laakiin kulligood waxay isugu imaanayaan
in madaxweynaha uu la shaqeeyey uuna dhiirigeliyey in dowladda lasoo weeraro ayna ku dhintaan dad badan inay noqotay in saacado dhan lala wareego US Capital. waxaan aaminsanahay madaxweynaha inuu halis ku yahay dadka iyo dowladda, ayay tiri Ilhaan Cumar. waxay kaloo sheegtay Ilhaan in madaxweyne Trump uu ka hadlay arrin aan madaxweyne laga filaynin isaga oo kadib weerarkii Capital fariin bartiisa Twitterka ugu qoray dadka soo qaaday weerarkaasi oo yiri waan idin jeclahay. dowladda Itoobiya oo hadallo digniin ah u dirtay dhigeeda Suudaan ayaa sheegtay in uu dulqaadkii uu ka dhamaaday kadib markii Suudaan ay ciidamo soo dhoobtay halka ay labada dal isku hayaan. waxaa guuldaraystay dadaalo la doonayay in xal looga gaaro xiisadda ka taagan xadka labada dal. xiisadda muddo 10 sano dhan soo jiitamaysay ayaa mid ahayd u dhaxaysay dalalka Suudaan iyo Itoobiya, waxayna ay salka ku haysaa deegaanka beeraha qaniga ku ah ee lagu magacaabo Al-Fashqa oo ka tirsan qariirada Suudaan, balse ay muddo deganaayeen beeraleyda Itoobiya. ciidamo ka kala tirsan labada dhinac ayaa 2 isbuuc ka hor isku dhex dagaalay iyadoona xurguf ay dhex martay. dhinaca Suudaan waxay u muuqdaan in ay doonayaan in ay xaaladda ay ka sii huriyaan, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Dina Mufti oo saxaafadda kula hadlay Addis Ababa. mar wax laga weydiiyey in Itoobiya ay dagaal la geli doonto ayaa waxa uu sheegay in marka horeba ay wanaagsan tahay in diblomaasiyadda ay shaqayso, waxaana uu intaasi ku daray in wax walba oo dhammaad ay leeyihiin, isagoo ula jeeday in xalinta arrintan ee dhanka diblomaasiyadda ay tahay wax midaysanna. saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in hadda kadib qof walba oo raba inuu yimaado Mareykanka la weydiin doono warqad cadaynaysa in laga soo baaray lagana waayay xanuunka COVID-19. xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee loo yaqaano CDC ayaa sheegtay in amarkan oo muddo 2 toddobaad ah ku dhaqangeli doono uu qaban doono muwaadiniinta Mareykanka iyo kuwa ajnabiga ah ee u safraya Ameerika. dalka Mareykanka xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu ku dhacay in ka badan 22 milyan oo qof, halka ay u dhinteen in ka badan 375,000 oo qof. amarka cusub ayaa imaanaya xilli tiri maalmeedka dadka cudurka u dhimanaya shalay gaartay heerka ugu sarreeyay tan iyo markii oo cudur uu ka dilaacay, iyadoo ay u dhinteen in ka badan 4,500 oo qof. ugu dambayntiina daawadayaal, qodobka ugu dambeeya haddii aan soo qabno xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa dowladda Iiraan ku eedeeyey in kooxda jabhad doonka ah ee Al-Qaacida ay u ogolaatay in saldhig cusub ay ka samaysato halkaas, si ka duwan Afghanistan markii Al-Qaacida ay isku qarinaysay buuraha. Al-Qaacida maanta waxa ay gabaada ka heshaa maamulka Iiraan oo difaacaya, ayuu yiri Mike Pompeo. wax cadeymo ah uma uusan keenin eedeymahaasi. wasiirka arrimaha dibadda Mohammad Javad ayaa hadalka Mike Pompeo ku tilmaamay been dhalinaysa dagaal. bishii Noofembar ee lasoo dhaafay, Iiraan ayaa waxay beenisay war ku saabsanaa in taliyaha labaad ee Al-Qaacida Cabdullaahi Axmed Cabdullah oo sidoo kale loo yaqaano Abu Maxamed Al-Masari ay ciidamada Israa'iil ku toogteen Tehran kadib codsi uga yimid Mareykanka. guud ahaana daawadayaal, warkii aad kala socoteen warbaahinta Walwal xilligan waa naga intaa. tan iyo kulanti dambe intaynu war noocan oo kale ah aynu dib ugu kulmi doono. ammaane.